Wiilkan waxa uu ka yimid dalka dibadiisa, waana maalintiisii koowaad ee uu dalka joogo. Waxay isa soo raaceen saaxiibkiisii ay dugsi quraanka wada dhigan jireen, xaafadana ay wada deganaayeen. Markii ay xoogaa socdeen ayaa wiilkii qurba joogtaha waxay ishiisu ku dhacday gabadh laamida dhinaceeda ku iibinaysa khudrad. Saaxiibkii ayaa ku yidhi, bal gabadhan warbixin iga sii. Saaxiibkiina waxa uu ku yidhi, gabadhan dumarna way dhaaftay, ragna may gaadhine inaga keen, hore loogu daalayay. Kadib saaxiibkii isagoo la yaaban hadalkiisii ayaa iska tageen. Kadib maalintii labaad ayaa uu aabihii soo raacay, waxaana uu ku yidhi, aabbo waxaan doonayaa gabadhan. Aabihiina waxa uu ku yidhi, ma xuma ee waan kula doonayaa, horta aduu la soo hadal oo iska soo qiimee. Kadib maalintii dambe ayaa isagu keligii u yimiday. Gabadhii ayaa u tegey, waxaana uu ku yidhi, waxaan rabaa inaan kula hadlo. Iyadii waxa ay tidhi, ma xuma ee xaggan ina fadhiisi. Waxaana ay fadhiisteen kursi u dhow miiska ay khudradda ku iibinaysay. Kadib markii ay sheekaysteen ayaa uu weydiiyey inay guur soo martay iyo in kale. Waxay ugu jawaabtay, anigu guur maan soo marin, laakiin waxaan ahay hooyo 5 carruur ah nuujisa, horraado aan weli gudlan. Waana uu isaga tegay isagoo yaaban oo isweydiinaya, sidee gabadh aan la guursanin hooyo u noqotaa, 5 carruurna u nuujisaa, siiba horraado aan weli gudlan. Markii uu aabihii uga sheekeeyey wixii ay isdhaafsadeen iyo wixii dhex maray ee uu odaygii dhegaystay sheekadiisii, ayaa uu ku yidhi, waa runteed oo waxa ay quudisaa 5 carruur ah oo hooyadeed ka dhimatay, aabbaheedna wax dhaqaale ah ma haysto. Sidaa darteed ayaa uu naaskii ay nuugi lahaayeen u noqday mid aan weli gudlan. Wiilkii waxa uu go'aansaday inuu caawiyo, waxaana uu u geeyey gabadhii lacag si ay ugu dabarto ama ugu kaalmayso walaalaheed iyo aabbaheed. Gabadhii waxay ku tidhi, lacagta boorso ku soo rid si aan la iga arag. Wiilkiina waa uu ka aqbalay oo boorsadii ayaa uu soo qaaday. Markii uu boorsadii u soo qaaday ayaa gabadhii uu ku yidhi, lacagtii wataa. Kadib waxay ku tidhi, haddana boorso ku soo rid. Waana uu xanaaqay wiilkii. Kadib aabbihii ayaa ku soo noqday, waxa uu ku yidhi, gabadhu waxay leedahay boorso ku soo rid. Kadib aabbihii waa uu fahmay gabadhu waxay ula jeedo, waxaana uu ku yidhi, waxay uga jeedaa lacagta magac u bixi. Sidaa darteed aabbaheed aynu u geyno iminka oo aynu uga dhigno Suuriye ahaan. Wiilkiina waa uu ka aqbalay oo waa israaceen. Markii ay israaceen ayaa waxa dhacday inay aabbaheed u geeyaan lacagtii si ay uga doontaan gabadha ama uu soo siiyo. Waana la soo raaciyey gabadhii. Sheekadan waxaynu ka faa'iideynaa in haddii aad lacag bixinayso ama wax kale ama hadiyad, inaad u bixiso magac sida sadaqo ama hadiyad ama Suuriyo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka si ay kuu soo gaadhaan barnaamijyada aanu soo dhigno halkan. Siina share garee si ay u gaadhaan dad badan. Waad ku mahadsan tahay la socodkaaga.